kulan wacan oo wanaagsan khaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oon halkan idinku soo gudbin doono haddii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a ruushka oo shaaciyey in ay eryi doonaan xubno duulamaasiin ah oo kasoo jeeda dalka maraykanka si ay uga argoostaan warkii washington ka soo baxay asbuucii lasoo dhaafay ee ahaa 12 xubnood oo 24 saacadood loo qabtay inay dalka iskaga baxaan kuwaasi oo kasoo jeeday dalka ruushka waxaa sidoo kale warkeena aad ku eegi doonaa xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato oo isagana ku dhawaaqay arrin halis ku ah dalka ruushka haddaba arrintaasi maxay tahay madaxweynaha dalka Ukraine oo ka codsaday shirweynaha madaxda midowda Yurub iyo nato iyo sidoo kale G7 uga socda Brussels in ay talaabo adag ay ka qaadaan dalka ruushka taasi oo ku doonayo madaxweynaha Ukraine in weerar toos ah lagu soo qaado dalka ruushka haddaba madaxdaasi maxay arrintaasi ka dhaheen iyagoo jawaabo kala duwan ka soo saaray ayaan warkeena kula wadaagi doona haddii eeba yiraahdo in ka badan 15,000 oo askari ayaa ruushka laga dilay tan iyo duulaanka Ukraine inta uu ku soo qaaday sida la sheegay hase ahaatee ila xogagaal ayaa sheegaya tiradu inay intaasi ay ka badan tahay ruushka ayaa sidoo kale dhinaciisa sheegay in aysan waxba kama jiraan ku tilmaamay arrinta ka soo baxday dalka Ukraine ee lagu sheegay 15,000 askari inay ka dhinteen boqortooyada Bahrain ayaa si kulul iyadana u cambaaraysay weerar fashilmay oo maleeshiyaadka xuutiyiinta ay rabeen inay ku qaadaan doomo ganacsi oo ku xayirnaa badda cas taasi oo la sheegay inay fashiliyeen ciidamada isbahaysiga oo ku sugnaa halkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad idinka codsanayna haddii uu soo gaaro muuqaalka sii shargalay oo like saar oo nala wadaag fariimahada waxaad fariimahana noogu reebi kartaa qaybta commentiga mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda dalka Ukraine ayaa wajiyo kala duwan soo maray iyadoo dagaaladu ay sii xoogaysanayaan ayna wali socdaan waxaa sidoo kale socda wada hadallada la doonaya in lagu soo afjaro colaadda hase ahaatee gantaalada iyo duqeymaha ay ciidamada ruushka soo tuurayaan ayaa saameyn weyn ku yeeshay dalka iyadoo dhimasho aad u tiro badan laga soo sheegay inay ka dhaceen saacadihii ugu dambeysay dalka Ukraine caasimada Kiev ee dalka Ukraine ayaa la sheegayaa in gabi ahaanba dhulka la dhigay inteedii badnayd iyadoo kumanaan guri oo kuwa dheerdheera ay gantaaladu haleeleen halka dadkii shacabkaana ay iskaga qaxeen magaalada ayaa sawiro foolxun laga soo qaaday iyadoo dayax-gacmeedka sawiraantii saacadii ugu dambeysay uu ka soo qaaday ay aad u ildaran tahay isla markaana wali ay weerarada iyo duqeymuhuna ay ku socdaan xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ayaa sheegay in ruushka laga qaadi doono tallaabo adag isagoo sheegay in ruushka dhinac walbaba laga go'doomin doono hase ahaatee madaxda nato iyo G7 iyo midowda Yurub oo shir uga socdo Brussels ayaa walaac ka muujiyeen cunaqabataynta ruushka lagu soo rogayo iyagoo badankoodu madaxdaasi ay ka cagajiidayaan in cunaqabatayn kale lagu soo rogo waxayna sheegeen tii hore loogu soo rogay ruushka in ay saameyn badan ku yeelatay dhammaanba dunida waxay sidoo kaleeta sheegeen in cunaqabatayntaasi laga fiirsan doono dalal badan ayaa sheegay in cunaqabataynta ruushka lagu soo rogahayo si toosa looga fiirsado waxay sidoo kaleeta sheegeen saameynta dunida ay ku yeelatay dhinaca shidaalka saliidda iyo dhammaanba agabyadii ruushka uu samayn jiray oo dunida laga mamnuucay badankeeda ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha dalalka Yurub iyo G7 iyo sidoo kaleeta naataba madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ka codsaday madaxda shirku uga socdo Brussels in ay talaabo adag qaadaan taasi oo lagu micnaystay in uu doonayo madaxweynaha Volodymyr Zelensky in weerar toos ah lagu soo qaado dalka ruushka diyaaradaha dagaalkana la siiyo wuxuuna marar badan ku soo celiyay in madaxdu ay ka arrinsadaan sidii loo garab istaagi lahaa Kiev iyo shacabka reer Ukraine isla markaana weerar toos ah loogu qaadi lahaa dalka ruushka wuxuu sidoo kale sheegay in cunaqabatayn lagu soo rogay ruushka aan waxba looga qaban karin oo ay tahay muhiimada in dagaal toos ah lala galo ruushka si loo burburiyo isagana magaalooyinkiisa wuxuu sidoo kale sheegay madaxda ku booriyay in uu yidhi arka magaalooyinkii waaweynaa ee dalka Ukraine sida loo galay waa in sidaas oo kaleeto ruushka loo galo taasi oo uu doonayay inuu ku dhiirigeliyo madaxda inay ciidamo iyo diyaaradaba ay u soo diraan dalka Ukraine si ay sidoo kaleetana isagana uga qayb qaataan dagaalka una xoojiyaan ciidamada reer Ukraine ee iska caaminta ku haya ciidamada Ruushka Vladimir Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in
loo baahan yahay in ruushka isku dhinac looga soo jeedsado si loo xaqiijiyo buu yidhi duulaanka uu ku soo qaaday Ukraine loona tuso in dal dhisan oo madax bannaan lagu soo duulo in ay tahay arrin xun lagalana kulmahayo cawaaqib xumo madaxda halkaasi ku shiraysa ayaa iyagana dhinacooda sheegay in laga fiirsanayo tallaabo walba oo lagu qaadayo dalka ruushka waxay sidoo kaleeto si cad u sheegeen oo u sheegeen madaxweynaha Ukraine in aysan ciidan iyo diyaarad toona loo diraynin dalka Ukraine hase ahaatee cunaqabataynta iyo waxyaabaha la midka laga taageeri doono waxay sidoo kale sheegeen in shacabka reer Ukraine ee ka soo qaxaya dalka dhibaatadu ay halikeeyeen ama dagaaladu ay halikeeyeen in si wanaagsan loo qaabili doono la garab istaagi doonana waxay sidoo kale sheegeen shacabka naftigiisa ku go'doonsan gudaha Ukraine in kaalmada bini'aadanimo la gaarsiin doono la garab istaagi doonana hase ahaatee filitaankii uu filahayay madaxweynaha Ukraine ayaa noqday mid aan waxba ka jirin isla markaana uu kala kulmay dhabarjab sidii uu doonayana uusan ka helin madaxda uu ka rabay ayagoo ku tilmaamay in ciidanka Ukraine ay iska caabin sameeyeen laguna tilmaamay inay yihiin ciidan geesiin isla markaana difaacanaya dalkooda hase ahaatee NATO iyo G7 iyo sidoo kale midowga Yurub aysan diraynin diyaarado iyo hub iyo ciidan toona aysan u diraynin dalka Ukraine madaxdan ayaa ka gaabsanaya dagaalka Ruushka uu ku qaaday halkaasi waxayna sheegeen in arinta uu ku hanjabayo Ruushka ee ah dalkii faraha la soo galo dalka Ukraine oo xaaladaasi soo farageliyo uu kala kulmi doono cawaaqib xumo ayaa noqotay madaxdu in ay ka fiirsadaan in ciidan iyo hub loo soo diro Ukraine iyadoo laga cabsi qabo Ruushka inuu adeegsado hubka chemicalka sidoo kale uu adeegsado hubka lugneerka isla markaana dalalku ay baqid weyn ka muujiyeen sidoo kale Ruushka waxaa looga digay in uu joojiyo adeegsiga hubka chemicalka ee uu adeegsanayo dalka Ukraine iyadoo hubkaasi uu sheegay Ruushka inuu 3 mar oo kaliya uu adeegsaday dalka Ukraine hubkaasi ayaa loo yaqaanaa hypersonic isagoo Ruushku la sheegay 3 marba inuu u adeegsaday goobaha adag ee dagaalada xoogan ay kaga iimaanayeen isagoo sheegay in hubkaasi uu yahay hub iska caadi ah ayna yihiin gantaalada iska caadiga ee Ruushka lagu farsameeyo hase ahaatee dunidu ay xaqiijiyeen inuu yahay hub chemical isla markaana dunida ka mamnuuc badan 15,000 oo askari ayaa la sheegay in laga dilay Ruushka tan iyo intii duulaanka uu ku soo qaaday dalka Ukraine hase ahaatee Ruushka ayaa dhinaciisa sheegay inay kaga dhinteen 500 oo askari halka sargaal ka tirsan NATO uu xaqiijiyay in asbuucyadii ugu horeysay 15,000 oo askari laga dilay Ruushka waxaa sidoo kale ilo xogogaal ay sheegayaan in Ruushka ay dhan tahay dhimashada laga dilay askartiisa 30,000 ilaa 40,000 oo askari Ruushka ayaa sheegay inay macquul ahayn askari taadan inay kaga dhimato dagaalka Ukraine isagoo ku tilmaamay Ukraine inay leegtahay gobol kamid ah gobolada dalka Ruushka wuxuuna sidoo kale sheegay in ciidamadiisu ay awood buuxda u leeyihiin inay gacanta ku dhigaan 24 saacadood hase ahaatee uu badbaadinayo shacabka reer Ukraine una u turahayo inay waxyeello soo gaadhaan shacabka reer Ukraine Ruushka ayaa sheegay in dhimashada hadda ka dhimatay saxda ay tahay 500 oo askari ayna been tahay waxyaabaha kaleeta ee baraha bulshada lala wareegayo wuxuu sidoo kale sheegay NATO arinta ay sheegtay inay dhinteen askar ka badan 30,000 oo askari gaaraysa ilaa 40,000 in ay arintaasi tahay arin been abuur oo ay sameeyeen Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa sheegay in duulimaasiin Mareykan uu ka eriyay doono dalkiisa isagoo sheegay 24 saacadood gudahood inay iskaga baxaan dalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in arintaasi ay tahay arin lagaga argoosanayo Mareykanka oo asbuucii la soo dhaafay 12 duulimaasi oo Russian ah laga eriyay kuwaasi oo u matalayay qaramada midoobay Ruushka ayaa sheegay in duulimaasiintan ay wadankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan lagaga eriyo doono ayna tahay cid walba oo Ruushka faragelisa in ay la kulmi doonto tallaabada lagu farageliyo tallaabo ka adag Ruushka ayaa wada argoosyo uu kaga argoosanayo midowga Yurub iyo dhammaanba xulufada Mareykanka iyadoo uu sheegay dhammaanba duulimaasiinta wadamada taageeraya Ukraine ka soo jeeda in sida ugu dhaqsiyaha badan lagaga eriyo doono dalka Ruushka daawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka aynay waa naga intaa warkan warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo